markan been abuurka ah yagoori baa shirka furmayaayo waa lagu heshiiyeeyo anagoo saaqa wada hadlayna anigu Soomaaliland saaq baan u aqaanaay waa wada hadlayna meesha uu ka yimid waxaan ka sii daray xaqiiqadan ka jirta laas aanood iyo dhibaatadan uu ka geysanayo uu guriyihii ku dumiyey uu caruurtan uu sheegayo shafka xabadda kala dhacaya indhaha kaga soo saaray in uu ka dhigo arrin cayaara marka waxaa maskaxdayda ka degi weyday qofkan hadlaya mas'uulka sheeganaya iyo waxaan uu ka hadlaya iyo waxa meesha yaala waxaan u kala garan waayay ma sida u qiimo yaraynaya oo xushmad aan u hayn oo been inta u leeg baa meesha u jooga beenta inta leeg u sheegaya sida aqligiisa u caayaya waxa mas'uuliyadiisa ku sameynaya baa waxa u sheegaya mise isaga aan dunidan ku noolayno heer saar lahay dadku rootiga u mudaharaadaya maxay keed u cuni waayeen ba xaqiiqadiisa iyo noloshiisa iyo aqliyadiisa ay ku samaysan laas caanood wax tuuraalaha oo ka sameeyay ciidankiisu ay ka sameeyeen ma jirto laas caanood wixii ay ka cabanayeen ahayd in magaalada laga duqeynayay isla magaalada weliba markaasoo janhada SNM ay soo gashay oo ay shacabka ku dabagabanaysay maanta waxa uu isagu qaray waxa weeye dad shacab oo mudaharaadaya inuu xabadda la dhacay oo uu indhaha kaga soo saaray oo uu shafka kaga dalooliyay oo meydkooda meel walba daadsan yihiin realistically de qof miyir qaba wuxuu ku hadla maanta muusabixi kumuusan hadin waxa ka dhacaya meeshana wuu iska indhatirayaa ma kibir bay ka tahay oo isla weynidiisa halkaa gaarsiisay mise xog la'aan iyo caqli xumay ka tahay anagu ma garanayo waxa uu ka hadlayo dhan wax ka jira ma jiraan warkan uu sheegay uu yiri xiriir baanu samaysanay waa la isu imaanaya iyo talaadiin baanu soo dirayna waxba yaraatay ka jirta iyo meel la isugu imaanaya iyo xabad joojin la isla qaatay midnaba ay xabad joojinta de shalay buu madaafiic iyo keenayay anigu salaadiinta uu sheegayo waxaan u qaatay uu leeyahay waa soo diray adoo aadayay kaarayaashii shalay meesha marayay inay salaadiin u bixiyeen iyo madaafiicdii la siidayay waxa kaliya annaga na soo gaaray waa madfac iyo xabad iyo dil dadka iyaga la dilay annaga waxa aan international community isku ogeyn oo ilaahay dad ku roon yahay dawladaha dariska aan isku ogeyn oo Itoobiya ay u horeyso oo dawladda Soomaaliya aan isku ogeyn in ay ku yiraahdeen muuse dadkan madfaca iyo garaacida ka daa ciidankaagana geyso meel aan dadkan ayaa ka dhibaatayn karay oo guryahooda aan ahayn taasaan isku ogeyn markaa kadibna xabad joojinta hal lagu dhawaaqo annaguna waxaanu ballan qaadaynaa warkiisan uu leeyahay dad ayaga tarooli karin baa jooga meesha waa ina wax kama jiraan qof kasta oo ka mid ah oo dhinac ayaga ka dagaalamaya ama mudaharaadaya annaga under control annaga xukunna annagu hoos yimaada maalinta aanu leeyahay xabadda joojiyana way joojinayaan maalinta aanu leeyahay sidana way sidii